iyo fan Soomaaliyeed hodan ma yeeshaane afkuun baan ka hadalaye waan hoos madownahaye hidaaya iyo tawfiiq ma laha fan iyo heesaaye markaad horay u badataad isgaran hodan tabarhayne halka yagii duqoobaad ka garan marin habowgeenna salaadaha barkeen ma holliyaan qaarna ma hagaajo هيا على السلاد مكعنو وانكا هردنايه marka wixii xalaarana waynu hoggaansanaa wixii xaaraana waynu ka feejigan nabigu sallallahu alayhi wa sallam wuxuu sheegay saddex arimood oo xaraama inay xalaalaysanayaan afar arimood weey la yakunanna min ummati aqwaamun yastahilluna al-hira wal-harir waxay xalaalaysanayaan ummad imaan doonto ummadayda ka mid ah zinada iyo xariirta dharka xariirta ay ragga waa ka xaraam wal khamra wal maazif khamrada iyo waxa weeyaan heesaha ayay xalaalaysan doonaan haddaba u fiirso khamrada iyo zinada iyo xariirta oo tahriimkoodu si cad waadix u yahay waxaa afar looga dhigay heesaha iyo macaasifta ayaa afar looga dhigay waxaa ka mid ah hawa raacitaanka iyo nafta in loo yeelo waxa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu ka xaaraantimeeyey heesaha oo la tiriyo amaba se la dhegaysto waa wax ilaahay subxaanahu wa tacaala addoomihiisa uu ka mamnuucay aayado qur'aana buu ilaahay ku caddeeyey nebi maxamed baa calayhi salaatu wasalaam in badan ka digey وعدي رادك حناي كل يوم قفك قلبي جيسة عمل كيسة حبني هيسة أخلاق ديسة يرقن كيسة نولشيسة جودهان عربت حنا كدلتا الدنيا انت اللي تشوفه يا آخر إلهي سبحانه وتعالى مال انت الله ارتقه إلهي بوحد ومن الناس من يشتري له الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ضدك وحا كميضا kuwa ku bedelanaya xaqii iyo diintii ilaahay uu soo dejiyey ee ilaahay uu faray inay dhegaystaan inay ku qowlaan ay ku hadlaan inay quluubtooda ugu raaxeeyaan inay raacaan ay ku camal falaan kuwa ku bedelanaya lahu alxadiid waa hadal kasta oo baadila oo heesuhuna liiskiisa meel sare ay kaga jiraan arrintaasi inay jahli tahay buu sheegay ilaahay subxaanahu wa tacaala dadka waxa kamid ah wilaay qaar iibsanaya war liito bila macna si uu dadka uga lumiyo dariiqa xaqa diintii iyo dariiqi xaqaana uga dhigta mid lagu dheeleero dadka noocaas ah sida u dhaqmaa cadaab kuleeyay leeyay حديث كلا النبي وحي صلى الله عليه وسلم في هذه الأمة قذف ومسخ وخسف ummaddan waxaa dhexdeeda dhici doona oo ahaan doona in dhagaxaan dhulka samada looga soo qaadiyo qaar ka mid ah oo cuquubo samada looga keeno waxaa dhici doona qaarkood in dhulka lala gooyo waxaa dhici doona qaarkoodna in la nasakho oo waxa weeyaan la dooriyo oo la bedelaba saddexdaa arrimood ayaa ummaddan dhexdeeda dhici doonta ومتى ذاك يا رسول الله إلهي رسولك يسيو أرنكاسي قورمي دعيا والنبي يقول صلى الله عليه وسلم إذا ظهرت القينات قبلها هو باللضعة أو هيسا مركي صوت ظاهران والمعازف آلات الملاهي وحيالها اللقوه هيسنا بنانك الله صدقه وشربت الخمور خمردنا اللعبه intaas markii ay yimaadaan ummadan waxa weeyaan ciqaabta noocaas ayaa ku soo socota